buuggani waa looma ooyaan waxa qoray France Fanon wuxuuna ku qoran yahay Soomaali sida loo ogyahay France Fanon Soomaaliga ma aqoon kuma hadli jirin waxna kuma qori karin waxa suurta gelisay in buuggani Soomaali ku qornaado turjumid oo ku sameeyay turjumaan Cabdilcasiis Guud Cadde soddonka bisha 2022 maalinta turjumaada adduunka awgeed waxaan idin soo gudbinaynaa warbixin ku saabsan waayaha turjumida af Soomaaliga halkan waa staan aniguna waa Cabdilaahi Raagi waxa laga yaabaa inaad la kulanto waayadii la soo dhaafay buugaag la soo turjumay qoraallo qormooyin iyo hadallo dhaadheer oo turjuman af Soomaali iyo afaf kaleba afka Soomaaliga waxa loo soo gudbiyaa aqoon badan oo ku qoran afafka inaga khibradda cilmiga iyo buugaagta wax soo saarka badan leh sidoo kale waxa marka qaar dhacday in af Soomaaliga wax laga turjumo oo afafka kale loo turjumo gaar ahaan sugaanta iyo waraqaha rasmiga ah tan iyo markii la hirgeliyay farta Soomaaliya 1970-yadii qarnigii hore waxa socday hawshaasi ka dhashay dadaal loogu jiro in aqoon badan loo soo turjumo af Soomaaliga gudidii hore ee af Soomaaliga ee waayada shaqeynaysa waxa hirgelisay halbeegyo iyo erbixino loogu talagalay hay'adaha rasmiga kuwa dawladda iyo shaqooyinka xafiisyada sidoo kale waxa jiray buugaag sida sayniska oo tusaale ahaan laga xusi karo halbeegga neerska iyo caafimaadka oo loo soo turjumay si ay u adeegsadaan shaqaalaha iyo waxqabatada ama xoogsatada Soomaaliyeed ee hawlahaasi ku mashquulsan waxa aanay ishu seegi karin oo mar walba la arki kara doorkan sanadahan la soo dhaafay dadaalka badan ee la gelinayo wax loo soo turjumo afkeena hooyo ee Soomaaliga turjumaadaas oo laga yaabo inaad kula kulanto meel kasta oo ka soo horbaxda waxa dadaal gelinayo qofaf shirkado iyo kooxo isku xil saaray si shakhsiya iyo si wadareedba inay u soo saaraan aqoon badan oo afafka kale ku qoran una soo gudbiyaan qofka Soomaaliga ah ee Soomaaliga akhrista kaliya Soomaaliga akhrista ama jecel isagoo afafka kale yaqaan in Soomaaliga wax ku akhristo waxa laga yaabaa inaad maqashay magacyada shirkadaha qaarkood sida Hilbres, Looxbres, Garanuug, Qalinmaal, Laashin iyo shirkado badan oo kale oo aan halkan ku wada xusi karin waxa kale laga yaabaa inaad maqashay magacyada tarjumayaasha qaarkood sida Boodhari Warsame, Cabdilcasiis Guud Cadde, Cabdilcasiis Iimaan, Badiic, Obsiye iyo rag kale badan oo aan halkan rag iyo hablo badan oo aan halkan ku soo xusi karin munaasabada tarjumada adduunka awgeed waxaan isku dayayaa inaan maanta halkan idinku soo gudbiyo su'aalo aan hor dhigay dadyo ku mashquulsan inay wax turjumaan ka shaqeeyaan turjumada ama faafiyaan waxa la turjumo oo kala duwan ugu horeyn waxaan su'aalo la xiriira faafinta turjumida weydiiyay oo hor dhigay Cabdilcasiis Iimaan oo madax ka ah shirkadda Qalinmaal ee soo taabacaada oo soo saartay buugaag tiro leh oo turjumaan Cabdilcasiis Iimaan soo dhawo waa mahadsantahay su'aasha ugu horeysa aan jecelahay inaan ku weydiiyo Cabdilcasiis ahaan qof ka shaqeeya waxna tarjuma daabacaada tarjumada iyo maxaan ku faafinteedana ka shaqeeya waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo horta su'aasha ugu muhiimsan oo ah marka wax la turjumayo shaqooyin noocaas la qabanayo masalada la xiriirda xuquuqda turjumida ayaa imanaysa masalada laakiin taana ka wareysa waxaan jeclaan inaan wax ka weydiiyo qadiyada ah horta maxaynu uga baahannahay inaan wax turjuno bariyahan dambe oo soo korodhay wax la turjumo adiguna dadka ka shaqeeya qayb ka tahay marka baahida turjumada aynu u qabno maxay tahay aan hadda wax turjumaynaa waa mahadsantahay sayidka marka hore waa idin mahadnaqaya barnaamijka quruxda badan ee aad soo agaasinteen adiga iyo teamkaastaan Cableba marka hore haddii aan si toos ah u galo jawaabta su'aashaasi turjumaadu waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee aynu u baahannahay dhowr qodob ayaana ku soo koobi karaa maxaynu uga baahannahay turjumaad anigoo eegaya inta aan ka shaqeynaya ama ku dhex jiray marka hore horta turjumaadu waa bridge-ka isku xidha bulshooyinka aqoonta ilbaxnimooyinka iyo kala duwan sidoo kale waxa ay ka mid tahay waxyaabaha wacyiga bulshada kordhiya kasoo kor uga soo qaada maxay ahayd sadxinimada ama habaaska hooseynta sidoo kale waxaynu u baahannahay waxay qayb ka tahay af Soomaaliga iyo kobcintiisa oo siday uga noqonaysaa waxay noqon kartaa in ereyo hore u jiray oo la ilaawi gaadhay ama la ilaaway ay dib u soo nooleyso sidoo kalena ay ereyo aan jirin oo terminology ama mustalaxaad cusub erebixino cusub aan idhaahdee ay soo kordhiso marka afkana faa'iido muhiim ah ayay u haysaa oo aan sinaba uga maarmi karin waa kobcin iyo ilaalin afka ah
sidoo kale waxa ay faa'iido u tahay bulshooyinka marka ay turjumaadda bartaan shaqo abuur oo bulsho badan baa ku shaqaysanaysa, waayo shaqada turjumaaddu waa shaqo in badan dunida laga tixgeliyo, xirfad weyn ah oo maxay ahayd shaqo weyn samaysa. Intaasaan kusoo koobi karaa. waa mahadsanti. aad iyo aad waxaan markaan hawsha turjumaadda galno markii waxaa imanaysa markaa maxaan ku rahdaa kafaafiye ahaan xuquuqda buugta la turjumayo sidee loola tacaamulayaa, sidee loo helayaa, maxaa mashaakil ka taagan, bal qadiyadda maxaad ka odhanaysaa? xuquuqdu waa qodob aad iyo aad muhiim u ah sidaan u arko faafiye ahaan, waayo qof dadaal uu bixiyey in si fudud loo qaataa waa nooc ka mid a tuugada aqooneed ayay qayb ka noqonaysaa. sidaa darteed waa arrin muhiima in la iska ilaaliyo ay tahay. marka faafiye ahaan caqabad baa jirta lagala kulmo turjumaadda xuquuqda buugga. taasi waxay ka mid noqonaysaa uun caqabadaha soo waajaha turjumaadda. haddii aan dhowr qodob ka soo qaato, marka aad doonayso in buug la turjumo, haddiiba aad faafiye ahaan isku daydo in buuggaasi muhiim yahay oo ay tahay in la turjumo, caqabadda koowaad ee kaa hor imanaysa waxa weeyaan maxay ahayd in qofkii xuquuqda lahaa aanu kuusoo jawaabinba, haddaad email u dirto, haddaba fariin u dirto, aanu soo jawaabeynba, ama muasasadii lahayd aanay soo jawaabeyn. sidoo kale caqabadda kale iyadna jirtaa waxa weeyaan dadka qorayaasha ah ee wax turjuma, waxa buuggii way turjumayaan iyagoon xuquuqdooda raadin, xuquuqdii buugga iyagoon raadin ayay buuggii turjumayaan. dabeedna buuggii turjuman baa lagu keenaya, lagu odhanaya degdeg u taabac, buugga waa diyaar. haddii aad kala hortimaadid xuquuqda hala raadiyo, culays baa halkaa ka imanaya, kuma qancin karaysid si degdega, uguma qancin kartid qofkii qoraaga ahaa inuu buugga xuquuqdiisa u raadiyo oo ay tahay waajib inuu ku raadiyo. sidoo kale mid kale ayadna jirta oo caqabad kale ayaa jirta oo buuggii haddiiba lagu soo jawaabo, qofka qoraaga ah ama waaqiceenan caadiga ah iyo waxaan isdabaqaynin qiimaha ama sicirka lagu iibinayo xuquuqda buugga ama haddaan idhaahdo lagu kiraynayo. marka qofkii qoraaga ahaa isagoo markii horeba ahaan haysan dakhli ama kharashaad uu buugga hore ku taabacda, haddii lagu idhaahdo xuquuqda buugga ayaa intaa lagaaga iibinaya, iyaduna culays kale ku noqonaysaa. taasina waxay keenaysaa in aanu wax xuquuqaba raadin. marka culays baa jira halkaa. waxaanan soo jeedin lahaa haddii si gaara looga shaqayn lahaa, cid si gaara ay si gaara uga shaqayn lahayd turjumaadda xuquuqdeeda, waa arrin fiican bay ahaan lahayd. laakiin waa culays hadda jira oo maxay ahayd aan la dafiri karin. sidoo kalena waxaa jira maxay ahayd dad markaaba bixiyaana way jiraan oo si firiya u bixiyaa way jiraan, laakiin ma badna. waa war wacan wey. qodobka xige ee rabay in wax kaa weydiiyo masalada la xidhiidha buugta lasoo turjumo suuqooda, yani ma suuq ma leeyihiin, ma gadmaan, ma soo celin karaan maalgelintaasi la geliyo hadday tahay lacagta xuquuqda turjumida lagu bixinayo iyo lacagta turjumaanka lagu bixinayaba? waa su-aal fiican. buugta waayadan dambeba suuqa ku jirta, bugaagta cusub ee waayadan dambe soo gashaaba badi waxay u badan yihiinba turjumaad. waxay u muuqataa si in loo xiiseynayo bugaagta turjuman, sababta oo ah waxaynu nahay bulsho markii hore akhrisan jirtay wax isku wada mid ah, oo tusaale ahaan haddii buug lasoo bandhigayo ama buug la qoro waxa uu badi ahaan jiray suugaan shaksi laga qoray. taana waa laga daalay, taana waxaa la odhan karaa waa waxyaabaha ugu liita suuq ahaan. waa xaysiiskeedana walow ay ku xidhan yahay iyo suuq geyntiisa ay ku xidhan tahay, haddana buugta maxay ahayd turjuman waxay leedahay rajo fiican oo xagga suuqaha. waa marka qiimaha loo jabiyo dadka. aad iyo aad ugu dambeyntii su-aal aan jecelahay inaan ku weydiiyo oo ah mustaqbalka wax usoo turjumidda af soomaaliga rajaynteeda baad ka qabtaa? mustaqbalka turjumaaddu aad anigu sidaan u arko aad buu u wanaagsan yahay. mustaqbal ifaya ayaan u arkaa. marka iyadoo ay jiraan caqabado lala kulmi karo oo ay ka mid yihiin maxay ahayd inaanay midaysnayn juhud ama dadaalada turjumaaddu aanay midaysnayn oo qof kastaaba iskii isaga turjumanayo, haddana saas oo ay tahay waxa maxay ahayd qurux badan in la mideeyo dadaalada. arrinkii hore xuquuqda ahna si gaara loo ilaaliyo. mustaqbalka turjumaadda iyadna waxaa ifin kara wanaajin kara buugaagta iyo sicirka lagu iibiyo in hoos loo dhigo
oo waxay hayday book to book jaban noqoto. sidoo kale iyadna waxaa jirta oo aan isleeyahay mustaqbalka turjumaadda wax weyn bay ka qaban kartaa xirfadda turjumaadda oo kor loo qaado oo ama tababaro turjumaadeed la qaabto ama bugaag turjumaadda ka warramaya la qoro. marka waxa weeyaan waa mustaqbal fiican bay leedahay haddii juhuudda iyo dadaalada la mideeyo. waxaanan ku talin lahaa shirkadaha wax daabaca iyo shakhsiyaadku ama turjumaaba inay mideeyaan dadaalada ay ugu jiraan turjumaadda oo ay manhaj ka dhigaan yani qaab mowduuc gaaraba sidiisa gaar wax looga turjumo. marka mowduuc kasta turjumaad silsilada oo badan ay kasoo baxaan, sidaasna mustaqbal fiican bay ku yeelan kartaa sidaan qabo. sida aad arkayseen Cabdilcasiis, waxaan ka wareysanay masalooyinka la xiriira xuquuqda turjumidda iyo qadiyadaha soo saarista buugga iyo iibka buugga turjumaadda. laakiin qadiyadaha la xiriira xulashada buugga la turjumayo, gudbinta suugaanta iyo waxyaabaha dhankaas la xiriira waxaan su'aal ka weydiiyey Maxamed Buux oo isaga laftirkiisu ka shaqeeya si uu u soo turjumi lahaa buugaag suugaaneed oo culus. aad iyo aad Maxamed, waxaan ku bilaabi lahaa marka hore inaan ku weydiiyo موضوعين ترجمة الله حليلا وبديهن سؤال اللي سكوي دين كرانه وبديهن waxaan jecelahay in marka ugu horeyso ku weydiiyo masalada la xiriirda marka dhaqan iyo af wax laga soo turjumayo, dhaqan iyo af kale wax loo turjumayo, masalada xulashada sida loo xulanayo waxa la turjumayo iyo sida ku habboon tahay loo xusho iyo alaaba sida loo xusho. ra'yiga ku saabsan masalada xulashada inaad la wadaagtid. horta waxaan qabaa in masalada xulashadu ay tahay masalo qof iyo dooqi ah oo horta markeeda horeba qaabkan ku galay turjumaadda iska ahayd mid jacayl weereed oo ay hogaaminaya. dabadeed akhriskayga suugaaneed ee aan wado ayaa marka aan ku jiro aan weeraha cajab geliya aan isku dayi jiray inaan mucdeeda iyo quruxdeeda iyo qaabdhaceeda bal aan isku dayo inaan qaban karo oo aan soomaaliyeyn karo magaranaysaa. isku daygaas marka hore wax baqal u eg baa kasoo baxaya waa ila tahay. marka qaar marka mawduucaba laga tago in kind of laba luuqadood la isfahansiiyo waa arrin dooqeed oo qofku mawduucu isagoo xiiseeyo amba waxbarashadiisa ah amba uu isleeyahay bulshada wax uga taraysaa ayuu ku galaa turjumaadda xulashadeeda. marka anigu taan ku galayna waxay baalka jacayl weereedka. aad iyo aad masalada marka waxaa ka dhalanaysa weliba gaar ahaan suugaanta oo carab baabtay. marka suugaan laga soo rarayo af kale loo soo rarayo maxay caqabad leedahay, maxaa luma, maxaa soo gudba, arrin kale oo wax la iska weydiin karo weeye. suugaantaasi gabay ha ahaato ama suugaan kale ha ahaato oo ay u badan tahay sheekadu u badan tahay. horta waa runtaayo marka aad qoraal aan suugaanahayn aad turjumayso waxa ugu muhiimsan, inkastoo foomkuna isaguna muhiim yahay, laakiin waxa ugu muhiimsan inaad turjumaysaa markaa waa macnihii inaad si fiican oo afkiina si fiican u qaadanaya aad usoo turjumto. laakiin marka aad suugaan turjumayso waxa dee meeshii ku jira siiqadii baa ku jirta meesha, waxaa ku jirta dhismihii weeraha oo iyagu laftigooda iyo foomkan lagu soo gudbinayo oo iyaga laftigooda suugaanyahanku mararka qaar dee u adeegsado inuu fariin kusoo gudbiyo. ambaba luuqaduhu ay xeerar kale leeyihiin oo marka maanse la turjumayo maanse wax soomaali aan maanse ku ahayn ba luuqad kale soomaali ku noqonaya. marka wax badan oo u baahan in marka lasoo wararayo la localize gareeyo oo luuqadan kale iyo dhaqankeeda lagu bahleeyo way jirtaa. anigu laakiin mararka qaar waxaa baan israadaa in kind of si tajribada luuqada la gelinayo si ay u ballaarato bal in macnaa la isku dayo foomkeeda iyo waxeeda siiqadeeda in gebi ahaanba la isku dayo bal in lasoo raro waxa kasoo baxana la eego. laakiin waxaasoo dhan baa in la ilaaliyo. waxaa kaloo iyaduna meesha taalla qofka turjumaaga shaqada qabanaya in qofku wax curiyo iyo in curis hore loo curiyey uu mar labaad curiyo af kale ku curiyo farqiga u dhaxeeya iyo culayska ay leedahay ama fursadaha ay bixin karto. maxaad ka odhan kartaa qodobkaas? waa qodob muhiim ah oo horta markan sibaad yar dabran tahay marka aad wax
qof hore curiye aad doonayso inaad dib u curiso aad luuqad kale oo aan tii hore aan ahayn aad ku curiso waad sibaad u dabran tahay haddana sidoo kale creative initiative waad leedahay space aad ku samaysan garanaysaa oo aad sugaannimadaada iyo aad ku muujiso ma garanaysaa marka tan kale waxay markaad adigu curinayso waxa ay ku xiran tahay khibrad iyo aqoontaada haddii xirfadda aad u leedahay sugaanta oo soo duxanaysa laakiin markan kale waxa lagaa furtay contentiskii laakiin luuqaddii iyo dhismaheedii iyo sugaannimadeedii taas adiga ayay tahay inaad sida ugu munaasabsan ee ay luuqadan kale ugu soo gudbi karto inaad samayso marka waxaan odhan karaa labada ruuxi waa hawl adag oo aan fududayn aad baad umahadsan tahay waqtigaaga fiican aad nooga faa'iidaysay shukran halkaasaan ku gabagabeynaa qof kasta oo isku dayay in wax turjumo ama hore uga shaqeeyay masala ka garab dhow ama la xidhiidha turjumaadda mar walba wuxuu ku baraarugayaa oo ka hor imanaysa masalada la xidhiidha eray bixinta sidee ayaad u turjumi kartaa eray bixinta sidoo kale waxyaabaha turjumaadda hawl badan laga galo waxaa ka mid a uu garan karo qof kasta oo tijaabiya ama ka shaqeeya turjumaadda sida loo soo gudbin karo fahanka ama waxa mafhuumka conceptka la dhaho iyo arrimo kale oo la xidhiidha waxaan su-aalo ka weydiiyey aadan badiic oo ah turjumaan iyo qoraa af soomaaliga wuxuu soo turjumaa mudan aadan kusoo dhawow astaan iyo barnaamijkana ka samaynayno masalada qadiyadda turjumidda af soomaaliga wuxuu soo turjumidda munaasabadda tarjumada adduunka sanadka 2022 su-aasha ugu horeysa aan jeclayna ku weydiiyo waxa weeyaan turjumaan ahaan qofku markuu wax turjumaayo waxa ugu muhiimsan oo soo waajihi kara waxa kamid ah qadiyadda la xidhiidha eray bixinta marka arrinkaas sidee tahay in loo waajaho sidee loo waajihi karaa sida adigu u waajahday markaad wax turjumaysay wax naga dheh arrinkaas بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ عبد الله راجع أدبان مركو كوم هذا علنيا وما صنتهاي سؤال شاسنا رنتي ده وسؤال مركي ترجمة هذا الوضع حجرو رنتي واحد هاي السنترة أما أضرب لحاد واحد ترجمة هذا أنا شخصيا أنت أنا أركي إلى بحنتو وحكمت هاي مشكلتها هو وين أو سو وجهها ضدك واحد ترجمة waxaana keenaya laba mid kow qofku waxa uu turjumayo oo ah waxyaalo la xiriira culumtan casriga ah oo ama teknolojiyadda casriga ha noqoto ama siyaasad ha noqoto ama cilmiga kale oo ha noqdo arrimaha bulshada ama sayniska marka waa mushkilad runtii weyn oo taagan oo mar walba soo laabata dadkuna ay mataqaanaa turjumaanaduna ay ku dhiban yihiin waxa isdhihi karaa waxa keenaya in eray bixinta qofka uu ku dhibtoodo waxa kale oo kamid ah ma jiro qaamuus eray bixineed oo midaysan ma jiro taasa waxay keentay marka tusaale ahaan qofku marka uu shay cusub uu turjumo eray inuu la baxo qof kale oo isaguna isla mawduucii turjumay inuu erey kale uu ku turjumo oo uu Soomaaliyeeyo marka mushkiladaas waa mushkilad hortay noocaas u taagan waxa lagaga bixi karana waxa isleeyahay waxa ugu muhiimsan oo lagaga bixi karo hadda waxay tahay si loo helo erayo midaysan in la sameeyo qaamuus erey bixineed midaysan in la sameeyo aad iyo aad aan ka dhaxgalay waxa kale oo aan jecelahay inaad wax ka tiraahdo qadiyadda mar walba waxa dood ka timaada marka wax la turjumayo waxa la raaca xarafka hadalku soo u dhacayo xaraf turjumaada oo waxa xaq la siiyaa qorahi buuga mise waxa la raaca macnaha iyo fahamka oo waxa xaq la siiyaa akhristaha arrinka aad isku leeyahay ustaad ma san tahay horta in nuxurka buuga la raaco iyo in xaraf raac loo turjumo oo erey loo turjumo buuga ana waxa isleeyahay asal ahaan waxay u noqonaysaa waxa la turjumayo nooc uu yahay waxa jira tusaale ahaan buug ama waxyaalo la xiriira adabka iyo buug la xiriira cilmi ama academic ah qoraalku marka uu yahay fan ama sheeko faneed ama wax la xiriira waxa fudud in qofku nuxurkii uu sameeyo maadaama ay luuqad iyo arrimaha xiriir leedahay in nuxurka toos loo galo aan ereyna aan la turjumin laakiin marka qaarkood waxa laga fursan waayaa
in terminology-ga ama erey bixinta la muujiyo oo markaas waxaa ku khasbanaysa marka si xarfi ah in loo baalkiyo marka aniga waxaan qabaa in mar walba horta la soo dheelitiro duruuftana la eego wax la turjumayo laakiin midda ugu muhiimsan oo aniga mar walba ku dooda waxay tahay in macnaha ay muhiim tahay in qofku marka uu waxa la soo turjumay uu akhristo uu nuxurkii uu fahmi karo way marka qaar kood waxa dhacda qof soo turjumay buuggii qofka akhristaha markuu is yiraahdo akhriso de buugga wuxuu isu bedelayaa qofkaani wuxuu shaki ka gelayaa ma waxa akhriyaysaa sheeko faneed mise waxa akhriyaysaa qaamuus erey bixineed yani xarfiyaba waliba si ku talaxtaga loo sameeyay marka waxa isleeyahay mar walba horta waxa muhiim ah inay isku dheelitiran tahay laakiin wixii laga maarmi karo in nuxurka iyo macnaha xoogga la saaro aniga qaba qadiyada kale rabeen wax ka weydiiyo waxa weeye mar waxa la turjumayaa erey oo saan ku soo aragnay erey bixinta iyo turjumada xarafka ama macnaha marna mafhuum concept baa la turjumayaa marka ka guda balaaran ereygii sidee kula tahay in mafhuum loo soo turjumo ama faham loo soo turjumo si ka duwan ereyga iyo erey bixinta waa mahadsantahay ustaad horta waa iyada laftirkeedu dee waa muhiim waxaa isleeyahay in faham loo soo gudbiyo tusaale ahaan anigu shakhsiyan buugta aan turjumay badankood waa buug la xiriirta siyaasad dowladnimada marka qaarkood fiqiga siyaasadda uu soo galayo marka qofkii haddii si xarfi ah oo boqol oo xarfi buuggii noqdo qofkii waxa ku adkaanaysa inuu fahamkii guud waxaan laga lahaa ama ujeedadii laga lahaa inuu lumiyo marka waxa base u ah taa laftirkeeda ama gundhig u ah waxay tahay qofku ujeedada uu wax u turjumayo buuggan ujeedada laga leeyahay maxay tahay qofku inuu isweydiiyo marka ujeedada tusaale ahaan waxa loo turjumay buuggan in uu mushkilad siyaasadeed inuu daweeyo ama dhibaato siyaasadeed ee bulshada ka dhex jirta oo shaaxsane ka ah inuu daweeyo marka waa inuu qofku marka waadba uu ka fahmi karo fahamkii saxda ahaa tusaale ahaan waxa laga yaabaa erey fudud oo qofkii la isla wada fahmi karo inaad u adeegsato waa ka haboon meeshii aad ereyo raadin lahayd qalafsan ama erey dadku aysan wada fahmayn tusaale ahaan waxa laga yaabaa inaad tiraahdid higilka bulshada Soomaaliyeed waxa ay door bidaan loogaharnimada waxa ka fudud baa laga yaabaa inaad dhihi lahayd bulshada Soomaaliyeed badankoodu waa dad asal raac ah oo curfiga iyo waxyaalihii ay hore u haysteen marka waxaan ka soo wadaa qofku sida waxaan aniga qabaa qofka turjumaaga ah inuu mar walba xoog saaro fariintu sidee ku gudbaysaa meeshii uu xarafka iyo ereyada u sharaxaadooda uu ku mashquuli lahaa aniga shakhsiyan dhinacaasaan ugu dambeyntii wax ka weydiin rabay inaad ra'yigaaga naga siiso sideed u aragtaa mustaqbalka turjumada Soomaaliyeed aad buu mahadsan tahay Ustaad Cabdalle runtii waxaan dhihi karaa baraarugan turjumiddu waa baraarug wali barbilow ah wuu socdaa mustaqbalkana aniga waxa ii muuqataa dhinacna yani waxyaalo positive oo arrimo togan ba iga muuqda dhinacna haddii sida ay wax ku sii socdaan aan la helin waxyaalo halbeeg ama jaangooya qaabka wax u socdaan turjumaadu dhibaatooyin baa ka iman kara tusaale ahaan dhinaca marka laga eego togan dee waxa socota aqoonayntii af Soomaaliga yani iyo kobcintii erey bixinta iyo mataqaanaa af Soomaaligeeni iyo si guud badee ereyadii la xiriiray yani waxyaalihii la xiriiray teknolojiyadda cusub maamulka iyo waxyaalo badan oo mataqaanaa culumta kale la xiriiray ayaa af Soomaaligeeni lagu dabaqayaa ama la Soomaaliyeynaya wacyi badan oo thaqaafeed mid siyaasadeed ayaa runtii koobac ah baa ay muuqda mustaqbalka oo waliba xoogan laakiin haddaan la helin tusaale ahaan qaamuus erey bixineed oo midaysan mustaqbalka wuxuu keeni doonaa dhibaato waayo tusaale ahaan jahwareer baa wuxuu ka imaanayaa waxaan loo yaqaano ereyo farsameedka technical wordska oo dee luuqad walba leedahay waxaa dhibaato ka iman doontaa ereyada tan cusub oo casriga ah
oo qof walbi si gooniya u turjumanayo caqabad baa ka iman doonta hal erey haddaad kusoo koobto bakura jawi intahay mise weli baad ka qabtaa mustaqbalka tarjumadda runtii sharaysan mayno rajaan aniga ka qabaa waa isleeyahay doorkii dowladuna inay mataqaanaa uu soo laabto oo dhinacaasna ay xaliso turjumaaduna dabcan si hadda waxay ku socotaa qurux badan xitaa dadka turjumaanada baa booska buuxin doona isleeyahay haddii la waayo hogaantii mataqaanaa dhinacii hogaankii dowladnimada oo hawshitan mataqaanaa dardar gelin lahaa waa mahadsantahay waxaa lama huraana in laga fikiro marka turjumaadda af Soomaaliga laga hadlaayo in la isweydiiyo sidii loo horumari lahaa mustaqbalka turjumaadda waxa kale oo iyaduna meesha taala in isweydiino dadaalka qofeed iyo dadaalka wadareed sida uu saameyn karo masalada turjumaadda iyo waxyaabo kale oo arrimahaas la xiriira waxaan su'aalaha ka weydiiyay oo har dhigay Cabdiwahaab Cabdulqaadir oo ku magac dheer Saqa madaxna ka madasho Hobaan oo ah madal turjumaad wadareed samaysa wada turjuntana qoraallo xul ah oo ay iyagu doorteen soo dhaw Cabdiwahaab marka ugu horeysa waxaan jeclaan ku weydiiyo adigoo soo koobaya waxa ugu mudan ay uga baahannahay inaan turjumad sameeyno waxa ugu mudan ee ugu baahannahay waa in aqoonta iyo kasmada iyo ilbaxnimada ku qoran luqad kale oo tajribo nololeed oo xaqiiqo ah aynu helno inagoon marin inaynu anagu marno isla tajribadii ay ummadaasi mareen inta aysan qorin ka hor marka inaynu helno ilbaxnimo iyo fahan iyo tajribo iyo aqoon ay ummad kale samaysay oo dabcan aan uga faa'iideysan karno noloshayada iyo dhaqaalahayaga iyo wax walba oo la xiriira dadkeena iyo dalkeena waxaan rabaa inaan kaa weydiiyo waxaad gasheen adiga iyo asxaab badan oo kale jarib maxaan ku dhahaa tarjumad wadareed aan odhan karno si kooxa wax loo turjumo ama tarjumada la iskugu tago qof roolka ciyaaro khibradda maxaa nooga sheegi kartaa waxaad ka faa'iideen muhiimadda ay leedahay waxay soo kordhisay culeysyada iyada lafteeda loo timiday khibrad naga sii waa mahadsan tahay tajribadaas magaceeda horta waa madasha Hoobaan marka hore waxaa la oran jiray madasha turjumaadda Hoobaan hadda madasha Hoobaan baa la dhahaa tajribadaas 3 sano ka hor ayay soo bilaabatay hadda bishii waxaynu ku jirnaa 9aad almost waxaynu joognaa 3 sano guuradii kusoo wareegtay asaaskeeda 3 sano baa wadnaa tajribadaas waxaa nooga soo baxay in la joogteyn karo in wax la turjumo sidoo kalena aysan haddii laga heshiiyo oo la isla garto sida loo wada hayo ay fududahay in wax badan muddo mataqaanaa lagu turjumo cayiman tajribadaas si aynu maadaama waxaanu ka koobannahay 12 qof 14 qof si aynaan oo kala duruufo oo kala deegaan oo kala dal ah oo kala hawla si aynaan mataqaanaa culays badan ugu imaano aysan mashruuc u fashilmin waxaynu sameynay sida ugu fudud aan u maareyn karno maqaalkii toddobaadkii hal maqaal inaynu turjuno qof baa soo turjumaya waxay maraysaa 2 tafaftir mid higaada iyo mid macnaha ah maalinka jimcada aan la baahnaya marka tajribadaas waa ku soo guuleysanay waxaynu ma jirin marka hore mitaalaad gaar oo aynu saarayno xoog laakiin markii dambe sanad iyo bar markaynu wadnay waxaanu u badanay majaalaad gaara annoo weliba isku daynay inaanu isku dheelitirno marka qofkii culays fuuli maayo waxaa laga yaabaa 2 bilood ama 3 bilood in hal maqaal uu soo turjumo tafaftirkiina waa lala wadaagayo tafaftirka waxaa laga yaabaa isbuucan haddii lagu qoro inaan 3 isbuuc kale lagu qorin marka waa fududaa wax la yeeli karo tajribadaas wax fiican baana dabcan ugu qabsoomay oo madal 3 sano si joogto ah imse shay mareen waxaad turjumeen tirada I think waxaan filayaa ilaa iyo 300 oo gaaraysa 300 oo maqaal sidoo kale waxaanu turjunay oo insha Allah dhawaan soo bixi doono book waxaan rabaa markaan wax kaa weydiiyaa waxaad qeexday inuu markaad wax turjumaysaan dhowr door laga ciyaaro turjumadii koowaad tafaftir labaad higaada iyo macnaha faafintii yani shaqada wadarta loo qabanayo iyo haddaad isbarbar dhigto shaqada qofku keliya qabanayo ama aad qabatay ama aad ka warhayso yani culeysyada iyo farqiyada u dhaxeeya ama faa'iidooyinka ay kala leeyihiin dabcan shaqo horta shaqada groupka loo qabto hal cilad bay leedahay marmar baa mas'uuliyadda dayacmata markii la isku tuurtuuro maaragtay
laakiin jadwal baan anagu u sameynay si aysan mas-uuliyaddaasi meesha uga bixin waan naqaanaa qofka maqaalka bishaan ku qoran dhowrka qofka ku qoran bishaan waxaan naqaanaa qofka baahiya waxaynu naqaanaa goorta la baahiyo iyo wax lamidka ah marka in mas-uuliyadda dayacmataanu ka ilaalino waxay marka uga fiican tahay tan qofka waxay maraysaa gacmo kala duwan inta aysan banaanka si rasmi oo kaba dambaysa u imaanha marka qof baa macnihii toosinaya qof baa hikaayadii toosinaya qof baa eray meesha erayo qofku hadduu ku arko maqaalka uu turjumaya ku cusub wuu soo darxinayaa qaarkood waxaa la isku dayayaa maadaama aysan si rasmi ah eray bixinta Soomaalidu luqadaha kale ku jihaysan aysan si rasmi ah mataqaana u fadhin in wax la isku dayo hal abuur in la toosiyo marka tajribada qofka iyo tajribada farqigaas u dhaxeeya tanna faa'iidadaas ay leedahay tanna tan kooxdaana haddii laga ilaaliyo in mas-uuliyaddu dayacmato oo aan la isku tuurtuurin walaal qof inuu ku hadleeyo maqaalka toddobaadkan yaa turjumahaya haddaan jadwal jirin oo qorshe jirin waa la isku hadlaa aad baa umaasanta ka dhexgal waxaan jecelahay wax ka weydiiyo mas'ale aad u muhiim ah in ballaaratana laga yaabo oo ah sidee loo horumari karaa majaalka tarjumada Soomaaliga shaqada tarjumada ee Soomaaliga wax loo soo turjumo shaqadaas waxa loo horumarin karaa hal horta mushkilad baa jirta oo tarjumada maadaama ay aqoonta ka mid tahay majaalka aqoonta iyo aqoon kororsiga wacyiga mushkilad ay wajahayaan ama haysataa waa mushkiladiis waxa weeye aad looga maalgashado dadku ma maalgashadaan oo lagama shaqeeyo oo ganacsi lagama dhigto oo dadku kama fekeraan in ribix ka sameeyaan oo shaqo lagama dhigto waxa laga yaabaa dadka tarjumaada ama aqoonta ka shaqeeya macallimiinta ma sheegin dadka sida kale uga shaqeeya laakiin ama wax soo saara ama qorayaasha in ay boqolkiiba yani tiro fiican ay shaqooyinka xirfad kale leeyihiin marka haddii horumar fiican baa laga sameyn lahaa haddii la heli lahaa ganacsato Soomaaliyeed iyo dad maalqabeena iyo dad maalgashadaha majaalaad maalgashada isku day aad u fiican waxa jira shirkadda madbacadda Hilbres ay samayso la yiraahdo Hiil Turjumid waa majaal fiican weey marka waa tajribo la mid ah oo maalgelin fiican loo sameeyay hadii la helo horumar lahayd sidoo kale waxa ayana tarjumada horumar lahayd hadii nidaamka dawliga dhankiisa ay ka yimaadaan dhiirigelin ka timaado ayagu wixii nidaamka dawliga tarjumada la xiriira xeerar haday tahay maalgelin haday tahay shaqo abuur haday tahay mataqaana shuruucdii la xiriirtay daabacaha marka hadii dhanka nidaamyada dawliga ee Soomaalida ay ka timaado taageere ganacsatada iyo dadka hantida haysanaya majaalka ay maalgashadaan waxa la helayaa kumanaan dhalinyaro oo luqadihii si fiican u yaqaana oo shaqo ka dhigan kara oo wax fiican soo saari kara oo wax badan keeni kara marka capacity dadeed waa la heli karaa si ila tahay hadii dadka la soo soofeeyo annaga markii aynu hoobaan bilaabaynay qof xirfad ahaan turjumaa ah ma jirin laakiin dad dhalinyaro ay saarusooday luqadaha saasan marka ugu dambeyntii aan wax ka weydiiyo mas'alada la xiriirta sidoo aragtaa mustaqbalka tarjumada Soomaaliga waa ila fiican yahay markii aynu baraaruga aqooneed si guud Soomaalida wax qoris wax aqris wax faafin barnaamij si guud markaynu eegno tarjumada aad buu ila fiican yahay hadeer waxa laga yaabaa inaad sanad walba heshid 10 buug 5 buug u yaraan oo buug aad u heer sareyso fiican oo luqada kale loo soo turjumo ma jirin 5 sano ka hor ma jirin barnaamijkaas aas u abaabuleen marka mustaqbalku ay la fiican yahay si guud nolosha Soomaalidu waa soo fufmaysa soo hagaagaysa tarjumaaduna ayadana kaalinteeda qaadanaysa waa soo harjo ama ka qaba aad baa maasantay shukran sanadii 2020 soo dhaaftay waxaan ka shaqeynay dib u soo saarista buug ciwaankiisu yahay jidkii loo soo maray falsafada runta ah oo ah buug yare ku saabsan falsafada laguna sifeeyay ilaa inta hadda aan macluumaad ka hayno buuggii ugu horeeyay af Soomaali loo soo turjumay tan iyo markii la hirgeliyay farta cusub ee af Soomaaliga 1970 sanadkii qarnigii hore maalintii la turjumay buuggaasi la maanta waxay hor yaalla su'aalaha waaweyn ee aan mawduucan kaga soo hadalnay maanta oo ah xulashada turjumida waxa la turjumayo doorashadiisa afka wax laga soo turjumayo eray bixinta turjumida suugaanta iyo soo gudbinteeda turjumida iyo soo gudbinta mafhuumka iyo conceptiska iyo waliba suuqa turjumida daabacaada xuquuqda iyo qadiyada badan oo kale oo aan halkan ku soo koobi karin munaasabadan xuska maalinta turjumada adduunka iyo munaasabadaha dambe soo socdaba waxayna hor yaalla iyo inta u dhaxaysa inaynu ka shaqeyno sidii aynu horumarin lahayn
u faafin lahayn boorka uga jafi lahayn meel sarena u gaarsiin lahayn mashruuca wuxuu soo turjumida af Soomaaliga oo Google xaad u noqon doona in af Soomaaliga laftirkiisa wax laga turjumo oo aqoon iyo sugaan afafka kale u soo doontaan waa Cabdilaahi Raage waxaad nagala socoteen Astaan TV